بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسو دواد عشر كي سديدات كتاب كي سفينها عشر كاني هو وحن كسو فافاهني شروط الصلاة sidoo kale waxaan kaga soo hadalnay dhamaadkiisii waxa la yiraahdaa alxadath ama dahaara la'aan hadda casharkeena waxaan ka bilaabaynaa casharkii horena ku jiray shuruuda cawrada in la asturo casharkii hore ku jirtay cawra maxaa la yiraahdaa taas ayaan baranaynaa wuxuu yiri kitaabku al cawraatu cawrooyinku arbacun wa afar cawra jirta cawratu rajuli ninka cawradiisu mutlaqan ayadoon la kala saarin salaad ha ku jiro yuusan ku jirin dumar ajnabiya ha ag joogo yuusan ag joogin iyo wal amati adoontii cawradeedu fi salaati salaad hadday ku jirto waagii adoonsigu uu jiro lays adoonsan jiray haweeneyda adoonta ah cawra maxaa u ah hadday salaad ku jirto ma waa meel bayna surati xudunta iyo warukbati jilbaha ka dhaxeeya oo waxa weeye ninku markii uu tukanayo iyo markuusa tukanaynba waxa waajib ku ah xuduntiisa iyo jilbaha inta ka dhaxaysa inuu asturo haweeneydii adoonta ahayd salaada markay tukanayso oo midalan gurigeedii ku tukanaysa hadday rag ajnabi ag joogto oo hadda salaad tukanaysa markaas waa hawl kale waa balaaran tawshu waa soo socotaa laakiin gurigeeda hadday ku tukanayso adoonna ay tahay ayada waxaa loo ogol yahay xudunta iyo jilbaha inta ka dhaxaysa inay asturto waa hadda waqtigu uu jira hadda masaladaas ku dheeramayno wa cawratul hurrati haweeneyda xorta ah cawradeedu fi salaati salaada haddii ay ku jirto jamiicu badanihaa jirkeeda oo dhan weeye maasi wal wajhi wejiga iyo wal kafayni labada calaacalood wixii ka soo hara wejiga iyo calaacalaha wixii ka soo hara inta kale oo dhan waa inay qareysaa hadday banaanaadaan salaada intay ku jirto salaadii buraysa meeshaas isla degdeg haddaysa ku asturin wa cawratul hurrati haweeneyda xorta ah iyo wal amati adoontii cinda ajaanibi rag ajnabi ah hadday ag joogaan jamiicul badani jirkoo dhan wey waa jirka dhammaantiis wey macnaha jirka dhammaantiis wey waxaa laga wadaa ragga ajnabigaahi ma fiiri karaan jirkeedoo dhan haddaan wax daruuro aysa jirin oo maalan ba ganacsi hadduu jiro oo kale wax la kala gadanayo wejigaa la fiiri karaa dhakhtarnimad iyo caafimaad hadduu jiro wejigaa la fiiri karaa waxbarid hadday jirto oo ay shuruudii laga helo aysa xijaab gadaalkiisa suurtooban wejigaa la fiiri karaa macnaha meelo lasoo reebo mahana inta kale ninku haweeneyda ajnabiga ah jirkeedoo dhan ma fiiri karo wax sababa iyadoo aysa imaan laakiin ayada in ay asturato waxay waajib ku tahay jirka oo dhan markii laga reebo calaacalaha iyo wejiga kafaynka yacni inta labada kafoo calaacalaha iyo wejiga wa cinda maxaarimihimaa haweeneyda ajnabiga iyo tii adoonta labaduba hadday ag joogaan dadkii qaraabadooda ahaa iyo wanisaa'i dumar hadday ag joogaan dumarkaasina ay muslim yihiin hadday dumarku aysan muslimiin ahayn jirkooda sida ninka uga asturanayaan iyo wanisaa'i dumar markay ag joogaan maa waa meel bayna surati xudunta iyo warukbati ka dhaxaysa inta xudunta iyo jilbaha ka dhaxaysa weeye markii ay dadkoodii qaraabadooda ahaa la joogaan oo aabaheed iyo walaalaheed iyo maaragtay ay la joogaan dadka qaraabada ahaa markii laga reebo ninkeedii weye taas ninkeeda dameelna cawro kama ah hadda waxaan gelaynaa salaada tiirarkeedii ama arkaanteedii faslun haadaa kani faasilun wuxuu kala saarayaa wixii soo socday wax hadda aan gelayno arkaanu salaati salaada tiirarkeedu 17 17 wey al awalu kan u horeeya anniyatu niyo wey waa inuu qofku salaadii niyeysto oo salaad duhura inuu tukanayo maalan oo waajiba farada qalbiga gashtaa salaadaas inuu tukanayo waajibka duhurka ah qalbiga gashtaa casr hadday tahay casr inuu tukanayo farada qalbiga gashtaa maqrib hadday tahay maqrib farada inuu tukanayo qalbiga gashtaa
cisho hadday tahay cisho farada inuu tukanayo qalbiga gashtaa subax hadday tahay sidoo kale marka waa inuu salaada ay tahay qalbiga ku hayaa afka waa yani sunno laakiin waajibku waxa weye qalbiga maxaa yeele nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxdaan niyooyin haddaan niyo la helin weysadii iyo salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo qubayska waajibka kulli ma ansaxayaan athani shardiga rukniga labaad ama tiirka labaad takbiiratu lixraami xirashadii takbiirteedii wey waa allahu akbarta salaada aa ku xiranaysid waa soo socotaa shuruuday leedahay allahu akbar wey athaalithu kan saddexaad alqiyaamu istaag weeye cala alqaadiri qofkii awooday filfardi salaada waajibka ah uu u istaago salaadu hadday tahay salaad farada qofkiina uu awoodo inuu istaago hadduu rababa waxa cuskadee biro iyo cuskanayo hadduuba awoodo inuu istaago waa inuu istaagaa salaaddii faradka ahayd marka istaag hadduusa awoodi karin haba yaraatee fadhiyuu imaanaya fadhi hadduu awoodi waayo jiifuu tegaya ilaa wixii oo dhan hadduu samayn waayo ilaa uu indhaha iyo ka dureeriyo waa qayba leeda kitubta dheerdheer lagu sheego marka istaag waa qasab salaaddii faradka ahayd waxaa ku baxay faradka sunnadii salaaddu hadday sunno tahay fadhi waa ku tukan kartaa intaa rabtida sunnada fadhiga ku tukan kartaa maanta o dhan haddaad salaaddii faradkaa tukatid intaa rabtidaad sunno ahaad fadhiga ku tukanaysa laakiin qofka taagan ajarkiisa barkiisaad leedahay alraabicu kan afraad qiraa'atu lfaatixati faatixadii in la akhriyo wey faatixada si saxa waa inuu akhriyaa waa noo imaan doontaa shuruudda faatixadu alkhaamisu kan shanaad ee tiirarka salaada ka mid a alrukuucu rukuucu wey waa inuu foorarsadaa si saxa u foorarsadaa asna faahfaahintiisu waa noo imaan doontaa asaadisu kan lixaad aطuma'niinatu waa xasilooni fiihi rukuuca dhexdiisa uu ku xasilo oo markii aad soo foorarsatid subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdihi aa leedahay waa inaa xasishaa haddaad soo foorarsatid adoo xasilan subxaana allah intii la dhihi kara hore ka laabatid salaadiis waxba kama jiraan attaasicu kan sagaalaad assujuudu sujuud weeye maratayni laba jeer la sujuudo laba goor ma waa boodi asaadisu kan lixaad aطumaniinatu xasil weeye fiihi rukuuca lagu xasilo assaabicu kan toddobaad alictidaalu waa istaagid soo toosidii ekaasho inaad soo istaagtidoo kasoo istaagtid foorarkii oo caadi qumaata usoo istaagtid athaaminu kan sideedaad aطumaniinatu waa xasil fiihi ictidaalka lagu xasilo markaad soo istaagtid waa inaad caadi u istaagtaa oo xasishaa ee aadan meel dhex gow ka dhihin ood hore ka laaban waa noo imaan doontaa xasiloonid wax laga wado attaasicu kan sagaalaad assujuudu sujuud weeye maratayni laba goor la sujuudo labada sujuudood weeye alcaashiru kan tobnaad aطuma'niinatu xasil weeye fiihi sujuuda dhexdeeda lagu xasilo xasilooniduna waa noo imaan doontaa subxaana allah intii la yidhaahda ugu yar waa imaan doontaa alxaadi cashar kan 11 aljuluusu fadhi weeye bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda uu u fariisto qofku labada sujuudood dhexdooda inuu fariisto wey qaab kasta oo uu u fariistana salaadda waa ugu ansaxaysaa qaabab fadli badana jira oo waxa weeye inuu sinta dhulka macnaha ciribtiisa inuu goglado markii ataxiyaadka dhexe ku jira sunno ah laakiin qaab kasta u fariisto hadduu gaar ahaan xanuunsan yahay sujuudu waa ka ansaxaysa fadhiga waa ka ansaxaya athaani cashara tiirka 12aad aطuma'niinatu xasilooni weeye fiihi fadhigaas dhexdiisa lagu xasilo athaalitha cashara tiirka 13aad atashahudu waa ataxiyaadkii alakhiiru dambeeyey ataxiyaadka dambe wey alraabica cashara tiirka 14aad alqucuudu fadhi weeye fiihi ataxiyaadka dambe markaa akrinaysid la xasilo la fariisto fadhigaas aad fariisanaysa ataxiyaadka dambe wey alkhaamisa cashar tiirka 15aad asalaatu waa saliyidii cala nabiyi nabiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam fiihi fadhiga dambe dhexdiisa lagu saliyo macnaha ataxiyaadka kabacdi markaad ataxiyaad ka dhamaysid ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku salinaysa asaadisa cashar tiirka 16aad assalaamu salaamtii wey waa inuu qofku salaamo naqsi la yimaado asaabica cashar tiirka 17aad asaabica cashara tiirka 17aad
atartiibu tartiibti wey waa inuu kala tartiibiyaa tiirarkan aan soo sheegnay sida u kala dambeeyaan u kala tartiibiya marka inta badan waa noo soo noqonaysaa mid kastaba meeshiisa markii aan tagno aan si fiican u kala dhigdhigi doonaa hadda waxaan gelaynaa niyadii ugu horreysa maxaa niyadda maxay tahay fasalkan wuxuu kala saarayaa wixii soo socday iyo waxaa haddaan gelayno niyadu qaybay leedahay salaadu hadday farad tahay oo waajib tahay qaabka u niyeysanaysid hadday sunno tahay sabab leh ama waqti leh oo la yaqaano iyo haddii sunnooyin aad iska daldalaysid wax sababa aan lahayn ay tahay ilaa intaba kuu banaaneed uu ku kala sheegaya anniyatu niyadii 3 darajaatin waa heerar saddexa 3 heer ay leedahay 3 leefal 3 qaybood kalata 3 maqaamay kala leedahay kow in kaanat salaadu hadday tahay fardan farad salaad waajiba hadday tahay waa duhur waa casr waa maqrib waa cishe waa subax hadday tahay wajaba waxaa waajiba qasdu lficli ficilka iyo samaynta waxa aad samaynayid waa inaad ku tala gasha hoo doontaa yacni inaad tukanaysid waa inaad u qasadid kow watacyiinu cayinid wey horta inaad tukanaysid waa inaad doontaa kow watacyiinu cayinid weeyoo gooni u tilmaamid oo macnaha duhur inay tahay waa inaad qalbiga gashataa casr hadday tahay qalbiga gasho maqrib hadday tahay qalbiga gasho cisho hadday tahay qalbiga gasho subax hadday tahay qalbiga gasho salaadaas waa inaad qalbigaaga salaada ay tahay gooni ku socda waa tukan aadan iyo walfardiyatu faradnimo oo salaada farad inay tahay waajib hayso sunno ahayn inaad qalbiga gashatid wey salaada marka hadday waajibta salaad farada tahay maxaa laga rabaa inaad tukanaysid niyeyso qalbiga soo geli iyo duhur waxay tahay iyo farad inay tahay wain kaanad haddii ay tahay salaadaasi naafilatan sunno muaqatatan waqti leh oo waa tee ka raatibatin waa sunnooyinka salaadaha faradka la socda duhurka sunnada ka horeysa duhurka sunnada ka dambeysa casirka sunnada ka horeysa maqribka sunnada maaragtay ka horeysa tan ka dambeysa oo tan dambe sii xoog badan tahay cishaha tan ka horeysa tan ka dambeysa subaxa tan ka horeysa waa raatibooyinka salaadaha la socday ilaa 22 gaarayay aw amase daata sababin mid sabab leh hadday tahay waqti male laakiin sababay ku timid oo waxa weeye sababteedu maalan qorax madoobaadkii bil madoobaadkii abaartii waxyaalahaas hadday tahay salaadaha la tukado qoraxdu markay madootiyo bishu markay madooto la tukado wajaba waxaa waajiba labadaas salaad hadday to ama sabab ciladi ay keentay ama maaragtay waqti leedahay sunnadaasi wajaba waxaa waajiba qasdu lficli ficilkii inuu qofku u qasdo ku talagalo inuu tukanayo waa inuu qalbiga gashtaa kow iyo watacyiinu cayinidoo salaadaas waxa ay tahay inay tahay qorax madoobaad salaadiisii bil madoobaad salaadiisii istikhaaro khayr dalab salaadiisii taxiyat lmasjid masjidka salaamtiisii salaad ah yani waa ina ay tahay wax kuu tahay waterki waxyaalaha salaada niyeyso wain kaanad hadday tahay salaadii naafilatan sunno iska mudlaqa hadda intaad istaagtaad doontay in aad maaragtay iska tukatid maanta o dhan sunno aanba xisaabnayn oo sababna lahayn waqtina gooni aan lahayn waa iska badi kartaa salaada sunno marka noocaas hadday tahay wajaba waxaa waajiba qasdu lficli ficilka ruuxu inuu doono faqad oo kaliya oo macnaha inuu tukanayo salaaduu niyeysanaya kaliya intaasa laga rabaa laakiin salaadahan aan soo sheegno o dhan tirsiga inaad niyeysatid 4 inay tahay 4 ragcaadi qasab maahan kulligood haddaba waxaan soo haynay ficilka waa inaad ku tala gashid ficilka muxuu yahay alficlu ficilka laleeyahay u qasadoo niyeyso usalli inaan tukanayo waa inaad niyeysatid wey waa tukanaya ha niyeysanaysaa waayahay in aad qalbiga ka niyeysatid awaajiba maxalu niyati alqalb haddaa afka uga dhawaaqdidna culammadu waxay uga qiyaas qaateen inay sunno tahay sidii niyooyinkii kale ayagoo uga qiyaas qaadanaya laakiin qalbiga waajiba haddaad maanta o dhan usalli ku hayd oo ku dhawaaqaysid ee qalbigaaga aysan ku jirin salaaddii ansixi mayso watacyiinu cayiniduna duhran salaadii duhur waxay inay tahay aw casran casr inay tahay waa inaad cayintaa ood qalbiga ku qabataa walfardiyatu faradnimadkuna fardan farad salaada inay tahay inay qalbiga ku qabatid wey marka niyada heerarkaas ayay leedahay intaasoo heeray leedahay niyadu hadda waxaan gelaynaa ilaa niyadii waa ogaane waxaa ku xiga wuxuu ahaa takbiirat lixraam xirashada takbiirteeda ayadiyaan shuruud 16 hayleeda baranayna shuruudu takbiirat alixraami xirashada takbiirteeda
oo allahu akbarta xirashada shuruudda ay iska leedahay 16 16 wey inaa iska fiirino wey dad badan aad tan ka qaldanta kow kuwa kaa qaldan qof kastoo dhegeyso shardiga kood muxuu yahay an taqaca takbiirtu waa inay dhacdo xaalat alqiyaami asagoo qofku taagan fil fardi salaadii faradkaad adoo taagan waa inaad xirataa salaada adoo taagan allahu akbarta dheh waxa ugu halista badan maanta maxay tahay qofa wuxuu imaanayaa masaajidkii oo salaadii lagu jiro oo imaamkii fooraro rukuucsan yahay markaasuu salaadii wuxuu isleeyahay imaamku yuusan kaasoo hortoosin waa wahsanaya wuxuu leeyahay hadhow ragcadaas amaad gadaal lagaaga raba markaasuu allahu akbar sii leeyahay oo macnaha allahudii hadduuba isagoo taagan yiri akbartii isagoo fooraray dhacday salaadaasi ma xira waa in istaag aa ku xirato allahu akbar aa ku tiraahdaa kabacdi foorarso haddaad tii kaloo foorarka mid kale loola yimaado sunna haddaa ka gaarta ka gaar haddii kalena caadi u foorarso laakiin tan xirashada salaadu istaag waa inay ku dhacdaa kow wa an takuuna haddana waa inay tahay xirashadu bilcarabiyati luqadda carabiga waa sax taas waa fududa wa an takuuna waa inay tahay xirashadu bilafdi aljalaalati lafdiga allah waa inay tahay aljalaaladu waa allah magaca alle allahu akbar ilaahaya weyn weeye marka magac kaloo alla asmaadiisa kuma xiro kartidoo arraxmaanu akbar allah raxmaankahaa weyn ma dhahaysa iyo walafdi akbaru akbaru lafdigeeda uma isticmaalaysid waa inay tahay oo ma dhahaysid akbaru wax la mid ahan keenayaaho allahu acdamu ilaahaya weyn ma dhahaysid arraxmaanu acdamu ma dhahaysid allahu akbar taasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyo takbiir leera watartiibu inuu kala tartiibiyo weeye bayna alafdayni labada dhawaq allahu iyo akbar saa waa inaa u tiraa allahu akbar haddaad tiraahda ka waran akbarullahu oo aad akbar hormarisid ma ansaxayso wa anlaa yamudda waa inuusan jiidin hamzata aljalaalati allahuda hamzadeeda jalaalada waa allahu hadda allahu haddaad tiraa ka waran allahu qur-aanka meelaha ku yimid waa su-aal marka taas hadda lama rabo su-aal allahu akbar haddaa hamsada jiidid allahu akbar haddaad tiraahdid ilaahay miyaa weyn ay noqonaysaa marka lama ogola allahu dhe marka allahu ha dhihin kow marka hamsada waa inuusan jiidin qofka oo madin wacadamu maddi baai akbaru akbaru ba'deeda waa inuusan taagin ayana jiidin allahu akbar haddaad tiraa ka waran waaba dembiba taas allahu akbar lama ogola akbar ha dhihin marka allahu akbar dheh wa anlaa yushadida waa inuusan shidin albaa ba'di allahu akbar haddaad tiraa ka waran allahu akbar aad tiraa lama ogola ayana allahu akbar okay waxaa jira marka maanta meelaha aadaanka iyo kale dadka qayb ka mid hadda aadaankii waa iska aadaama iyo shuruudii baran allahu akbar aa maqlaysa baar lama ogola taas marka akbar lama ogola allahu akbar meelaha la jiidi kara ba'du kuma jirto wa anlaa yaziida waa inuusan kordhin oo keenin waawan waaw saakinatan reeban aw amase mutaxarikatan mid shaqlan bayna alkalimatayni labada kelima dhexdooda allahu iyo akbar dhexdeeda waaw ha keenin mid reeban iyo mid xarakaysan labada oo allahu akbar haddaad tiraahda allahu waaw reebana keenta oo hadi ku reeban lama ogola allahu akbar ma dhahayst waxaan kaloo la ogolayn waaw shaqlan a keentidoo allahu wa akbar inaad tiraahd allahu wa akbar inaad tiraahd ayana lama ogola wa anlaa yaziida waa inuusan kordhin sidoo kale waawan waaw qabla aljalaalati allaahuda horteeda wallaahu akbarna ma dhihi kartid wallaahu akbar salaadii kuguma xirmayso allahu akbar aleed wa anlaa yaqifa waa inuusan ku hakan bayna kalimatay takbiiri xirashada labadeeda kelimo dhexdooda waa inuusan ku hakan waqfatan hakasho tawiilatan dheer walaa qasiiratan mid gaaban oo marka allahu tiraahdid inta hakatid kabacdi akbar ma dhahayst wax yarna kuma haka kartid mid dheerna kuma haka kartid haddii hakasho kuu timaado waxa weeye waa inaad soo bilowdaa allahu inta tirahdid dii oo kabacdi akbar tira ma anfacayso allahu akbar alrayna isku xijis marka hakasho dheer iyo hakasho joogsi dheer iyo mid gaaban midna lama ogola wa an yusmica waa inuu maqashiiyaa nafsahu naftiisa jamiica xuruufihaa xirashada
xarfaheeda dhammaantood waa inuu naftiisa maqashiyaa oo salaadii hoos aa u tukanaysid haddaa allahu akbar qalbiga allahu akbar ka tiraadi yani adiga aada maqli si adiga aada maqli karina laga rabaa haddaad la timaadid salaadaas kuma xira waa in aad adigu maqasha ugu yaraan qadar aa maqashii karti haddaa maalan ba ku tukanayda meel motoor iyo warshad iyo wax ka shidan yihiin ama gaari iyo oo gurdan weyn yahay waa ina ugu dhawaaqdaa si haddii qayladaas iyo buuqaas uusa jirin aa maqli lahayd wa dukhuulu lwaqti waqtigu waa inuu galaa fil muaqati salaada waqtiga leh salaadihii faradka tukanayna waqtiga lahaa waqtigoodu waa inuu galaa markaa xiranaysid kasoo qaad hadda maalan markan qurbaha la joogo kale waxaa laga yaabaa saacad inay tilmaamaysa salaadii oo waqti ay soo galayso kuu soo galaysa saacad ay sheegayso ka hor markii salaadii xoogaa yar sakana ka dhiman yihiin oo ay kuu soo gelin haddaa allahu akbar aad tiraahdid aad sugtid inta waqtigu soo galaya kabacdi waqtigu kuu soo gala ma anfacayso waqtigu markuu soo gala kabacdi xiro salaada ka hor haddaa xiratid xataa hal sakan ha ahaatee salaadaas waxba kama jiraan waayahay wa iqaacuhaa xirashada inuu rido weeye xaala listiqbaali qiblada isagoo u jeeda adigoo qiblada u jeeda salaada allahu akbar dheh laakiin haddaa adoo hawl kala haysid inta xiratid waxbaad dhiganaysaa imaamka fooraraa timid alaabaad dhiganaysa allahu akbaraad tiri waa soo jeesatay adoo xirtay ma anfacayso salaada adoo qiblada u jeeda xiro wa allaa yukhila waa inuusan dhimin oo ka tegin bixarfin xaraf oo min xuruufihaa xirashada xarfeeda ka mid a mid hal xaraf ha ka tegin allahu iyo haddaad tirahdiyo allahu akba kaliya haddaad tira laftiga ra'di ka tagtid ma la ogola waa inaad xirashada xarfeeda dhan la timaado wa taakhiiru takbiirati lma'muumi ma'muumka xirashadiisu waa inay dambaysaa can takbiirati limaami imaamka xirashadiisa waa inay ka dambaysaa oo marka aad salaada xiranaysid imaamku waa inu xirto lakin haddii imaamku allah markuu yidha adna isku mar allahu la tira isla xirataan ma anfacayso ka dambe imaamka dad imaamka mar kastaba daba joogaa jira mutaabaca laga raa inaad ka dambeydid imaamka xirashadiisa iyo tan ma'muumku waa kan dambo raacaha ah imaamkuna kii la raacay wey waa intaada xirashadaadu ay dambaysaa ee tan imaamka ay ka dambaysaa casharkan intaasaan ku joojinana wabilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu